صاحبيال soo dhawaada maanta enemiga ayadu waa enemiga ahaa tasarruf ND xalqadiisa labaad aan barto suugaysay markaan u guda galno xalqadan hore waxay ku joogtay Yujiro oo weynaaday xalqadana waxay ka bilaabmaysaa iyadoo loo sheegay in Yujiro waxa markasta uu arko in ay tahay dadkii laga dilay inkastoo hadda ay ka soo wareegtay 4 sano kadib waxaan aragnaa laba askari oo la dhacay dagaalka ay kula jiraan bahal yiraahdo Horizon of John oo loo yaqaan Giant laakiin Yujiro si fudud ayuu u dilay baalkaas isagoo muujinaya awoodiisa sare kadib muuqaalka wuxuu isku bedelay Yujiro oo ku sugan dugsiga wuxuuna isweydiinay sababta loo ganaxay ama looga joojiyay fasalka inkastoo uu baalkii dilay wuxuuna sidoo kale ka fikiraya sababta uu ugu baahan yahay inuu weli dugsiga tago laakiin macalinkiisa wuxuu ka codsanay inuu feejignaado haddii kale laga saaro doono dugsiga wuxuu dareemayaa farxad markii uu maqlay in xaaladdiisa la tixgeliyay balse gabadhii fadhida gadaashiisa ayaa Samuel Fan u soo bandhigaysa iyadoo la magacay Washinoi Hiragi waxayna u sheegtay inay tahay sarkaal kormeeraha oo ka tirsan ciidanka Jiniyada Imperialka kuwa loo yaqaan Imperial Demon Army-ga Shinoi waxay u sheegtay Yujiro in haddii ay aragto in uusan la shaqeynaynin ama uu iska madax adkaynayo in ganaxiisa la kordhin doono oo dugsiga ka maqnaan doono muddo dheer wuxuuna ka xanaaqay hadalkaas laakiin ma laha ikhtiyaar kale oo aan ahayn inuu la shaqeeyo taasina waxay keentay in Yujiro xasuusto wixii dhacay markii taliye Guran uu badbaadiyay una weydiistay bini'aadamku weli u nooliyay markii dunida san u burburisay Guran wuxuu u sheegay Yujiro in bini'aadamku aysan weli dabargoyn inkastoo musiibo baan ka dhacday wuxuuna cadeeyay in tirada dadka adduunka laga dhimay 10 hal oo kaliya markay dunida ka dhacday evolutionka taasoo keentay makhluuqaad yaab leh bahal cabsi ay ku faafaan meel kasta laakiin taliye Guran wuxuu carabka ku adkay in bini'aadamka aysan ahayn kuwa si fudud lagu jibin karo kastoo laga adkaadana waxay bilaabeen dib u soo kabasho ururkiisu ah ciidanka Jiniyada Imperial ee Japan ayaa ah kuwa hormuud ku ah dadaalkaas isagoo hadalkiisa sii watana wuxuu ku dhiirigeliyay Yujiro inuu ka mid noqdo ciidankiisa khaaska ah si uu la dagaalamo vampires-ka iyo bahalada khatarta Yujirona wuxuu u muuqday mid gooni u istaagay aan lahayn saaxiibo cidna aan la hadlin laakiin gabadhii Washinoi Hiragi oo gabadhii fadhisay gadaashiisa kana tirsaneyd ciidanka kormeerka waxay si degan u leedahay Guran wuxuu sheegay wax badan oo adiga kugu saabsan waxayna intaas raacaynaysaa in ay garanayso sababta uu dadka kale u diido waxay ogtahay in qoyskiisa oo dhan ay dileen vampires-ka taasina waxay sababtay inuu si sahlan qof kalsooni u siin karin wuxuu cabsi badan ka qabaa qofka uu jeclaaday markii laga dilay si lamada sidoo hore laakiin Yujiro si xanaaqsan ayuu ugu falceliyaa inuu ku leeyahay jooji inaad iska dhigayso inaad taqaanid waxba igama taqaan adiga Shinoi waxay Yujiro u dhiibaysaa warqad uu qoray taliye Guran haddii aanad sameyn saaxiibo laguma dari doono cutubka gaarka ee baabiinaya vampire-ka kuwa loo yaqaan Vampire Extension Unit-ka markuu taas maqlay Yujiro waa caroonaya markaas ka bacdina wuxuu si caro looga baxay fasalka isku dayay inuu ka tago dugsiga Shinoina weli way daba socotay inkastoo uu iska indhatiray markaas ayuu arkay koox arday oo ka careysiinaysa arday kale iyagoo u muuqda kuwa gardaran Yujirona wuxuu isku dayay inuu iska indhatiro laakiin gardarada wuu necab yahay Yujiro iska tago wuxuu dib ka maqlay iyagoo ugu yeeray magaca Livestock kaasoo ka xanaajinaya wuxuuna ku rabshada waday ku leeyahay joojiye waxaad wadama wax isku moodaa vampires balse ardayda gardarada wato uma arkaan wax khatar ah waxay bilaabayaan inay rabshad kula kacaan Yujirona markuu damco inuu isdifaaco Shinoi ayaa si degan ugu sheegaysa haddii aad la dagaalanto dadka rayidka ganaxaagu sii dheeraanaya Yujirona waa la garaacaya wuxuu iska aamusaya inkastoo si fudud u difaaci kara naftiisa inta kadib wiilku badbaadiyo lagu magacaabo Uchi ayaa u iimaanaya Yujiro isagoo kule waan ka xumahay wixii dhacay aniga dartaa iyo dhibaatadan ku soo gaartay Yujirona wuxuu weydiinaya maxay ku gaadaraysteen adiga iyo Uchi oo murugaysan ayaa sheegaya maxaa yeelay ma aan dagaalamin waa iska aamusay markay wax gudbayeen saa darteed way iga adkaadeen Uchi wuxuu sheegay in aan isaga la xumeyn wuxuuna intaa ku daray inuu doonayo in la saaxiib ardayga lagu magacaabo Yamanka sababta wuxuu rabay inuu qabto adeeg wuxuuna sheegay inuu ku dhacay taxanka Imperial Army-ga laakiin weli uu rabo inuu ku biiro tanina waxa la yaab ku noqotay Yujiro maadaama iyaga xitaa aysan u ogolaan inay ku biiraan kooxdaas Uchi wuxuu sheegayaa inuu og yahay in ay u muuqato wax la yaab leh qof isaga la eeg oo tabar yar uu ku jira ciidanka balse uu doonayo inuu argudo wadaashiis taasoo u dhimatay iyadoo iska ilaalinaysa vampires-ka wuxuuna dareemayaa in uusan waxba qaban karin markaas laakiin Yujiro ayaa u sheegaya in haddii uu isku dayi lahaa inuu caawiyo isaga uu dhiman lahaa sadarteedna aysan ahayn dambigiisa si kastaba Yujiro wuxuu adkaystaa in Uchi uu ka qoosto inuu ku biiro ciidanka sababta qof tabar daran sida isaga kale ah wuxuu kaliya caqabad ku noqonayaa kooxda baabiinta vampires-ka markaas oo Yujiro uu isku dayay inuu baxo balse markaas waxa dhacay qarax aad u weyn gudaha iskoolka waxaana isla markii soo yeeraysa digniin dadweynaha u sheegaysa waxa la shaaciyay vampire oo ka soo baxay xarunta cilmi baarista ee u dhow Shinoi ayaa markiiba u sheegtay Yujiro iyo Uchi si degdeg uga baxaan iyadoo u ballan qaadaysa inay wici doonto kooxda Moon Diamond Company laakiin Yujiro wuu diidaya wuxuuna leeyahay lama baahan in la waco aniga ayaa dili doona vampire-ka wuxuuna qaadanayaa safetiisa wuxuuna bilaabay inuu raadiyo vampire-ka ugu dambeyntii wuxuu ka helay mid ka mid ah fasalada iskuulka halkaas uu ku arkay naagta vampire-ka oo isku dayaysa inay gabar kale ka jaqday dhiiga Yujiro wuxuu si degdeg u weerarayaa vampire-ka balse uu ka badbaadiyaa si kastaba ha ahaatee Yujiro wuxuu ku guuleystay inuu ka jiro mid ka mid ah gacmaheeda inta ay dagaalka ku jireen
Yujiro wuxuu isla markaa arkay ardayga lagu magacaabo Yamanaka oo meesha jooga wuxuuna ku leeyahay qaado gabadh oo meesha ka baxday waxa tahay mid ka mid ah ciidanka laakiin Yamanaka wuxuu si cad ugu sheegay in waxaas beeneed uu ahayn askari dhab ah ay naagta vampire si lama filaan dib isugu xiraysa gacanteedii markaas uu wuxuu adeegsanayaa bistooladiisa wuxuuna bilaabay inuu ku toogto naagta vampire keedna iyadoo dhulka ku gabanayso ordayso waxay isku dayaysaa inay gaadho gabadha dhaawac ahayd wiilka lagu magacaabo Yuji ayaa ka badbaadinaya naagta vampire isagoo ka celinaysa lama filaan Yujirona wuxuu si geesinimo leh u difaacay Yuji wuxuuna ku oranayaa waxaad qabatay shaqo fiican laakiin Yuji wuxuu ka jawaabay si xishood leh ma ahan wax weyn naagta vampire-kana waxay dhuunta qaadanaysaa Yujiro iyadoo si xun uga la boodayso dabaqa sare ee dhismaha markay dhulka gaaraan Yujiro wuxuu ku dhufanayaa seeftiisa laakiin markaas ayaa goonaysa lama filaan uga soo muuqda gadaasheeda wuxuuna ku miday hubkiisa demonika Yugurana wuxuu si xanaaq Yujiro u weydiinaya maxaad ku fikiraysaa miyaadan ogeyn vampire-kan la dili karin hadduu hubkaaga u leen sixir ka hortagay vampire-da laakiin Yujiro isagoo madax adeeg ayuu ku jawaabayaa waan dili la si kastaba ay noqotaba markaas ayuu taliya guran ku qoslayaa wuxuuna leeyahay si fiican baad u qabatay inkastoo aad tahay ilmo yar iska bacdina Yujiro wuxuu arkay in kooxda Moon Diamond Company ay la joogaan taliya guran wuxuuna si toos u weydiisanayaa taliya guran fadlan iyo goor inaan ku biiro kooxda Moon Diamond wuxuuna tusay inuu awood u leeyahay in la dagaalamo karo vampire-iska isagoo cuskanaya wuxuu hadda u qabtay guran uu diiday wuxuuna leeyahay la aad saaxiibo samaysto ma ogolaan inaad nagu soo biirto Yujiro asoo xanaaqsan ayuu ku jawaabay aniga saaxiib u baahan aniga kaliya wax qaban kara markaas ayuu Yujiro ka soo muuqday dhinaca kale wuxuuna si lama filaan ugu soo booday saaxiibkiisa Yujiro isagoo leh waan ku farxsan in nabadbaado Yujiro ama ficilkaas ayaa ka yaabay Yujiro wuxuuna si lama filaan ugu soo xayay meesha uu taagnaa wuxuu leeyahay ilmo yar oo iska adag way balse wali wuxuu baahan yahay waxbarasho markaasna Yujiro wuxuu ku riyoonayay qoyskiisa hooyadiisa iyo walaalkiisa dadkii laga dilay waxayna ku dhahayaan ugu dambeyn waxa dhashay qofku u dhow hadda anaga wanasan karnaa waana riyo murugo leh balse farxad leh qoyskiisa hore waxay u muujiyeen inay hadda nabad galeen Yujiro wuxuu ka soo toosay isbitaalka isagoo murugo iyo farxad isku jirta dareemaya inooyana waxay u sheegaysaa go'aan ayaa la gaaray laga bilaabo maanta waxaad si rasmi ah uga mid noqoto kooxda Vampire Extermination Unit Yujiro wuu ku farxay wuxuuna si daacad ugu dhahayaa taasi waa war wanaagsan Yujiro inayna waxay sidoo kale sheegtay in codsiga iyo Yujiro la aqbalay labadoodaba waxay noqdeen xubno si rasmi ah uga tirsan kooxda Moon Diamond saaxiibayaal maanta muuqaalkan inta isku eegaya waxaan aad idinkaga codsanayaa hadda mar meeshan soo gartaan muuqaalkan like noo saartay noo qurxisid